abaarta iyo duruufaheeda walaalayaal waa sii adkaadeen haddana waxay u sii gudbeen stagekii aan mar walba rabnay inaan ka celino oo aan dadaal badan ugu jirnay inaanay u gudbin majaaca iyo maxaanku idhaahdaa dhimasho dadku ay dhintaan xoolihii hore u dhammaaday baahi badan way jirtay laakiin mar walba dadku inay baahidaas u dhintaan ayaa un dadaalkeeda intii la kari kara mar walba lagu wadi jiray caalamkuna uu nagu kaalmaynayay dalka Soomaaliya qaymeelo kamida already hadda waxa bilowday in dadku ay u dhintaan baahidaas daraadeed oo majaacadii ama faamiin ama heerkaas ay gaartay hadda muxuu ahaa dhibaatadii marka mar kale waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee walaalaha meel kasta oo caalamka ku nool yihiin iyo dalka gudihiisaba meeshaas ayaa duruufta dalkeena maraysaa dadkeen dadaalkii aan soo haynay oo faraha badnaa oo aan dadka ugu kaalmeynayna inaan sii kordhino oo aan wax ku sii darro si aan dadka aan gaari karnaahay ay u bataan oo aan culayska iyo duruufaha gira aan u waxayno sax maaha in annaguna aan darag aan la seexaweyno meelaha qaarkood iyo dadka qaarkiis dadkeenuna ay baahi ay u dhintaan waana wax waajib ah oo dhammaanteena wada saaran in arrintaas dareenkeena ay ku weynaato ilaahayna wuu nagu la xisaabtamayaa maalinta qiyaamaha inteena wax haysata oo waxay caawa cunaan ka badan haysato dhan su'aashaas waa la weydiin doonaa insha Allah maalin dhaweyd jimcihii halkan sidoo kale aan ka hadlay waxaan ku sheegay walaalaha inta masaajidkeena ku jirto in yar hadda aan badnayn nin walba telefoon mobile haysta telefoonkiisa mobile-kaana inta badan lacag EVC ku jirto marka walaalayaal aan dib isugu noqono aan bixino wixii aan kari karno awoodeenu ay saamaxayso si dadkeena aan culayska uga qaadno hadii aan leeyahay aad iyo aad ay arintaasi u culus tahay maanta meesha ay marayso dadku waa dhimanayaan caruurta yar yarka iyo waayeelka ugu daran hadda runtii waxa laga soo dayrinayo ay u badan tahay marka mar kale waxaan dadka Soomaaliyeed meel kasta jooga u baaqayaa ka codsanayaa in aan ku noqono muxuu ahaay jeebadaheena iyo guryaheena iyo waxaan haysano si aan naf u badbaadino waana tii muxuu ahaay ayday qofku nolol badbaadiyo asagoo dadka oo dhan badbaadiyo ay la mid tahay qof dilan asoo dadka oo dhan dilay bini aadamka la yiri ma aha muslimiinta lama dhihin qabiilkaaga lama dhihin bini aadamka oo dhan qof dilay ama bini aadamka oo dhan qof nooleeyo badbaadiyay ayuu qofkaas la mid yahay marka walaalayaal arintaasi ha nagu taagnaato markasta waxaan kari karno oo annagu aan haysano iyo cidii aan u qaylo dhaami karno wax u sheegi karno dhihi karno adiga hebelow muxuu ahay gargaarka wax ku darso oo wax gaarsi dadka aan dhihi karno ku tuumsanahay inay wax haystaan intaba taas waa fariin aan rabo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan inay gaarto kuna baraarugsanaadaan